khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhex taagay dadku dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaanaho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkiibuu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wassalaam mas'aladuu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam mahalulaclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nin reer baadiyo oo acraabiya ayaa nebigeennu saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimidday ayuu cimaamaddii go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmutalibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buudha 100 halaadoo geela isagiina la siiyey xaakim haddaad cid ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mahalulaclaa dhinac walba waxauu nebigu bashariyadda u yahay mihaalkii u sarreeyey lagu dayanaayey inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan limaadaa la'anna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoolla caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabi'inayaa markaa buu nebigu isaa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doona siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeyo oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaas siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qayliyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana caddaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa cidda lagu leeyahay waayo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam balu fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma caddaalad samaynin ilaahay dartiina loogama jeedo hadalkaa ninka lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi maxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radiallaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegey calayhi salaatu wassalaam markaa buu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsomoo isbeddilay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed caddaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo caddaalad samayn buu nebigu soo qabtoo ninka xidhi nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay dooni ha joogaan iyo qaa'idulacdam qaa'idkii weynaaya ummadda hoggaankayga ilaahay noogu dhiibay halkay kala joogaan bal isku eg saasuu eegay nebigu sal alla alay slam markaasuu yidhi ilaahay iyo nebi maxamed hadday iyaka caddaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo caddaalad samayn kara buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badanba waa la dhibo uu sabray buu rasuulku le'anna qur'aankaa nebiga qabanaayey qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur'aankaa laga bartaa qofka muuminka waxa xakamaynaya waa qur'aanka weeyaan haddaad cadhooto qur'aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur'aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa gurracanto qur'aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaadaa li'anna qur'aanku waa kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala caddaalad dhammaystiran baa qur'aanka ku dhammaystiran waa maxkamad caddaaladoo dhammaystiran markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam waa nebi muuse intaa in ka badan ba isagana waa la dhibo uu iska sabray dee anigana waa sabri bay ka dhigan tahay markaa wax kale iima yaallo sabirunbaa ii yaallo weeyaan sabir badana dulqaad badana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaad mas'uul isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga ka ilaahay adeecaya
cibaadadiisu naaqis ka tahay ka xaqa ilaahay ilaalinaya ka xaqa bini'aadanka weli aan dhammaystirin ka akhlaaqda wanaagsanne ka akhlaaqdiisu ay liidato ka diinta ku fiican ka diinta weli ku dhaqankayga ku fiicnayn intaba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu isku waday nebi rasuula waa la ikhtibaaray toddobadii hablooduu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uu iska sabray toddobadii wiiluu lahaana mar keliya israaceen uu iska sabray beerihii iyo tijaaraddii iyo xooluhuu lahaayoo dhan mar keliya laga qaaday uu iska sabray markaasaa jidhkiisii welibana xanuun lagu riday uu iska sabray xanuun nuuceeyaa gaadhay waxaa la yidhi jidhkii intuu dhammaaday harigga iyo lafahaas ku dheggan bas markaasaa wax ehela waxaa u soo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisii ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annagu aan kaaga baxno may anaa inaga fudud oo iniiga tegaya buuri way tukugisay bannaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culammada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tegaysay magaaladay u soo noqonayso dadkay u shaqayn jirtay aqalladay ka shaqayn jirtaa la yidhi wixii mushqaayad la soo siiya intay ugu soo iibiso khubs iyo idaam ayay markaa nebiga ugu keeni jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahda ayuubow xanuunkan halkaa ku gaadhsiiyey in ummaddii iyo dadkeennii ay bannaanka inoo soo tuuraan nebi ducadiisa la aqbala ayaa tahee ilaahay maad noo baridi ha kaa qaada xanuunkan oo dadkaan ku dhex noqonne markaa buu ku yidhahdaa 70 sanaan barwaaqo ku soo jirnee ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanna ayaa badan mise inta dhibaatadu inagu dhacda ayaa badan midkaa badan nicmadaa badan marka ambiyadu nicmadday eegayeen mar walba deedna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen markaa buu xaaskiisii ku yidhi 70 sanaan barwaaqo ku jirnee baa muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha ka mid a labadii dad isaga ugu dhoweedee qaraabadiisa ah ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yidhi mid baa yidhi markaa war u dhowaani mayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dembi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin eraygaasuu markaa nebi ayuubuu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaa buu uga dhaqaaqay halkaa buu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fii suurati alambiyaa وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه ودواقي وربي جيبه لما ناجوده وقيل دانترتو مركبه وحيري إلى أني قد نبأ يسوع قالوا إتابته هذا يقولون كون نحرستك وقلنا حرس مدامته إلى أن نبقى يقعد ويري إلى هاي مركبة دعاء يسوع كأقبل بالي هل كي وجوجي بالقول اللقطة هذا كل فوق اركض برجلك 18 سنة ننجي فيو حنوسنا أود جركيس ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodey yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saaraynay lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayno oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadamka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheenu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba iloodoo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jidhkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sana halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaay oo aan u shaqo tegey miyuu dhintay
ma dugaag baa qaatay weliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub kii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatootay maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuثmaan binu cafaan amiirka mu'miniinta u yeedhay saciid waa 10kii jannada loo bishaareeyey nin ka mid ah saciid ibn zayd abalacwar markaasuu waa laga soo dacwooday saciidow wayaa iga soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay ayaa la leeyahay oo macal ceelka iyadaa leh yaa amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa 7 dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu siiya waa indhabeesha dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegaysoo indhala ayay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata 7 dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguha ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cuثmaanu inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buuhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu waxaase waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhare inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro inbaa culammadu ka sheekeeyaan xajku u soo qasday markuu ixraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaquu xujiijkii dadkii xujaydii uu soo raacay ayaa waxaa la bilaabay markaa talbiyaddii baa la bilaabay labbayk allaahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk markaasaa korkiisa laga leeyahay laa labbayka walaa sacdayka xajkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalayo lagamana aqbalin dushiisaa laga dhawaaqayaa markaa mid ka dambeeya la maqashiiyey kii baa joojiyo ku yidhi iska hadh maxaanu hadhaa buuli ma maqlaysid jawaabta maxaad maqashay markaad tidhahdid labbayk allaahumma labbayk korkaagaa laga leeyahay laa labbayka walaa sacdayka xajkaaga iyo cimradaada iyo sacyigaaga iyo safarkaaga lagaama aqbalin baa lagaa leeyahay ma maqlaysid iska hadh haysdaalina lacagtana iska hayso qarashkan inuu kaa bixinay markaasuu yidhi maad maqashay haa haddaba anu maanta oo keliya ma maqal buu yidhi 7 sano
ونهرو حجي جوابتها وان مقلة يا ابني لكن ما هري وايو هلكا هدان كتغو هدان إلهي كهوس دقاقو oo isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobada iga aqbalo halkee kale taga baliisha guur ma haysan meel kale ma jira haddaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon garaaca baliisha markaas wallaahi ma jiro bas iska kaydaa buu kaydaa anu kaa umbaan halkaa umbaan joogaay ma dhaqaaqaye u bilaaba xajkii baa la gaadhay dawaafkii buu sameeyey dawaaf alquduum labbayk allaahumma labbayk yarkiina uu daba socdaa uu dhagaysanayaa waxuu ka maqlay korkiisa oo laga leeyahay labbayka wa sacdayk waan ku aqbalay dawaqaagii waan ajiibay xajkaagii waan aqbalay 27kii xajii hore aad u xajidoo dhanna waa laga aqbalay dembigaagina waa laga dhaafay حبوسا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حبوسا رحمة يسوع واصل أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة الإسلام كمركي اللون ديبي ومركو النبي قد جوده كإنتقال صلى الله عليه وسلم وحوها بقاش لوها بركة يبدأ عبد السوق كوي بيجرى الليل ألابتي يسيبوا قاتو دكتو صارتي عمر بارك نيكو سيسعودها قال يا أبا بكر إلى أين؟ وحولي دواشقتك يا oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa laga saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anu ka mas'uul maayo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas'uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas'uuliyadda uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas'uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay أرمحو سعدا يوا العق في عن هيش ميلا أنا صف عن هوجة جبستي لو حلبان كيف الأورنا يا الله بنين ميل والبن يكون صدا ما حين مسؤولية أمي أركين ماشي عيال قوقا يكبي لنا يا مسؤولية وحي أركين وحلقي أمد النبي قال الله خدميني وأذيك أمدين أمد هو أذيك يا إلهي خلاص كأنك كان هاي نسيه أبو بكر هو يا أبي ورعيال كيجي غير كيجينا ما هلليس هم مصاريفته دي أنا كمسؤولين أنا كشورين إني أظن قهرت هالك فريسو ما هلليس ندي تولي والله شوريي وحلو شوريي ما دام أفر غير لها إن بيت المال كان لقصية مصاريف غير كيس كفلا نف جحي إنه أكل غيبية مالو البرير كيس يجيب كاس يراشين كفلا لابدي سنة وطلده مدها يدور كي بلاد تيسي مركيتي مدي قد كان لقرد أبي بكر الصديق الله الرالي كان نقضي إنا كيسي عبد الرحمن بن أبي بكر والله عقد سدا أيا بيت المال كي مدي عبد الرحمن بن عوف أوها مالية نكي هاي أيور العقد بيت المال كعلي مركز سداد العقد حقت قوة جوجي وعد آباء الله ونحرستي أيا يقول الدردار مو يري هذا تيدي نقطة مانتا واحد دويا مانتا أنا أقول دول بان كلها مقالة مدينة دولكا إيبية لعقدة كالصوب أحد دولكا لبدي السنية دور كي بلود ثلاثة أمة عن هاي بيت المالكا لعقدة لك بان كقاضنا مصاريفتي وياني يقع علي أبو يري أنت النسو هذا نقول حلو قيبت أبو يري عبد الرحمن بن عوف ويا المحل هذا أبا قدر دار مسداس العقدة اللي قوي عليها هالكي بيت المال وصدوقاتي ومصاريفتي إنكو أدو قرتين ورير كستيني لبدي السنادات أيوة بهاي قرنا أيي دولكي ولها مركان يبينينا وحاونا قول دار من العقدة إن الكي اللي قوي علي بيت المال كان قوي علي
عمر بن الخطاب بالله كان عمر وهويي أبي بكر الصديق وبيقول أبو بكر وقبرك أبو بكر بدلت عمر وعود مدحذا أذيك الدبدا إيمان عيسى والله واد دالسوك وقاعد من بوكير وادنا دالسين بوكير سدان أولنا يا أبو بكر وقلت إذا وادنا دالسين بوكير لبدي السنة دور كي بلاد وطلاد أمته هيي وأنك يدي عليه بيت المال كإنتاس حكام الزمن كأنك ورما بعاصي محاكيني والله كبق إلهي بك عبسنيين آخرة يكون حساب تميين مركاسا كوغي مدحاها حق إلهي نوا إلهي حقوق دي بني آدم كان أساس وسكا إلهي كوغي فقير كاها حق إلهي نسلو وسكا إلهي حقي دد كان وسكا إلهي